adeegsiga tiknoolajiyadda ayaa door muhiima ka qaatay fududaynta dhinac kasta oo nolosheenna dhowrkii sane ee la soo dhaafay tiknoolajiyadda ayaa wax ka beddeshay habka loo shaqeeyo habka uu ganacsigu u socdo qaabkaan wax u iibsanno iyo qaabkaan u noolnahay tani waxay ka dhigan tahay in guusha ganacsigu ay si weyn ugu tiirsan tahay ka faa'iidaysiga tiknoolajiyadda waxaan dhisnaa software casri ah oo ku habboon baahida qaybaha kala duwan ee ganacsiga kaas oo u fududeeyay macaamiisheenna horumarinta ganacsigooda sare u qaadidda dakhligooda yaraynta kharashaadka ka baxa si fudud ula socoshada howlahooda goor kasta iyo degdeg ugu adeegidda macaamiishooda sidoo kale waxaan curinaa websaydyo ku dhisan hal abuur iyo aragti cusub lana jaanqaadsan sumadda ganacsiga iyo suuqa uu hiigsanayo macaamilka annagoo ugu adeegayno xirfad sare iyo khibrad qoto dheer martigelinta websaydyada lehna xawaaraha sare ammaan la isku hallayn karo ayaa ka mid ah adeegyada tiknoolajiyadeed ee aan bixinno hal abuurkeenna joogtada kuna salaysan ku kordhin waxtar u leh macaamiilka caawinta degdega ah casriyeynta iyo qiimo la awoodo ayaa naga caawiyey inaan u adeegno in ka badan 3,700 oo macaamiil ah u rarno shaqadooda tiknoolajiyadda casriga qaarkoodna gebi ahaanba ka baxeen hannaankii maanuwaalka ahaa waxaan dib u casriyeynay adeegyadeenna sida deegaan waa software loo isticmaalo maaraynta hodheellada iyo maqaayadaha kaas oo ka caawiya macaamiisheenna inay helaan diiwaan maaliyadeed boqolkiiba boqol la isku hallayn karo fududaynta howlaha iyo kordhinta faa'iidada yaraynta wakhtiga sugitaanka macaamiisha helista warbixinno ganacsi oo wakhti kasta ah in ka yar 5 sekend waxaan sidoo kale dib u casriyeynay barnaamij xisaabeedkeenna durdur oo ah xalka xisaabaadka ganacsiga lehna POS la socodka kharashaadka baxa kan soo gala hantida bakhaarka ku jirta iyo diyaarinta warbixin maaliyadeed dhammaystiran xilli kasta una sahashay in ay shay kasta faa'iidada ka soo gasha si sahlan ku helaan durdur Clinic ayaa ka caawiyay isbitaallada iyo xirfadlayaasha caafimaadku inay ka faa'iidaystaan tiknoolajiyadda cusub hagaajiyaan shaqada iyo hawl maalmeedkooda sida bukaan socodka bukaan jiifka farmashiga shaybaarka ballamada dhakhaatiirta iyo qaybaha maamulka iyo maaliyadda sanadka 2022 Soostag waxay sidoo kale qabatay Soostag Tech Week oo ah dhacdo sanado tiknoolajiyadeed iyo tartan loogu talagalay dhammaan dhalinyarada iyo ardayda barata cilmiga tiknoolajiyadda si ay u soo bandhigaan xirfadooda uguna diyaar garoobaan shaqada annagu kaliya ma dhisno software website iyo mobile apps waxaan bedelnaa hab nololeedka bulshada si ay si fudud ugu gaaraan hadafyadooda ganacsi ahaanshiyaha shirkadda ugu weyn ee tiknoolajiyad ka shaqaysa Soomaaliya laguna maamuusay doorkeeda haysatana abaalmarin caalami ah Soostag waxay xaqiijisay inay tahay hay'ad firfircoon oo kaalin weyn ka qaadata isbeddelka dhinaca tiknoolajiyadda Soomaaliya